waxaan u wanaagsan asxaabta waxaan rajeynayaa maalintaadu inay ku bilaabantay nabad qab. waxaan dib ugu laaban doonaa grammarkii khaasatan 12 tense ama 2 alif tense. waxaan soo qaban doonaa hal tense kaasi oo aan isdul taagi doono qaybta ugu muhiimsan ee ay tahay inaad grasp idea ama fikrad yar oo kugu filan ka haysto. hore waxaan youtube uga hadlay 12 tense marka ay timaado ardayga meesha ay tahay inuu xooga saaray waa xilliga ayaa la isticmaalaa tensigan. xilliga ay tahay inaad afkaaga ka soo saarto isticmaalka tensigan waa goorma. qaybtaas amase portionkaas ayaan ugu xooga saaraa waana inta keliyata ee ay qabtaanba tenisyadu keliya waxay noo sheegaan xilliga ay tahay inaad isticmaasho tensigan, xilliga ay tahay inaad afkaaga ka soo saarto qaabka tensigan u odhanayso iyo xilliga aad tahay inaad tiraahdo. keliya waqtiga ayuunbay sheegaan, waa indicate time, waayo tensiga la raaciibaa. aan tensiga markaa toos kula gala asxaabta past continuous ayaan ka hadli doonaa. midna halay ogaado inaad examples badan amase sharaxaad badan aanad ka helayn sababtu tahay waxaan xooga saaraa qaybta xilliga ayaa la isticmaalaa tensigan. waayahay aan haddaba sharaxo Englishdan. Past continuous tense in English is a tense. waa tense ayaa layidhi past continuousku ka tirsan Englishda. bal aynu eegna haddaba. usually waxaa loo isticmaalaa to show inuu tuso qofka an action dhacdo that was in a progress, taasi oo ku jirtay socod bay ku jirtay dhacdadan at specific time in the past. waqti cayiman oo waqtigii lasoo dhaafay ayay socod ku jirtay. was ongoing waxay mid soconaysa buu yidhi or amase happening dhacaysaa specific time waqti cayiman in the past waqtigii lasoo dhaafay. and also noun sidoo kalena waxaa loo yaqaanaa magac kale loo yaqaan waxa weeye past progressive. intaas aniguna aan in yar kusii darsado oo aan kusii iftiiminayo tensiga si fahankii aad ka haystay intii hore aan kusoo sheegay ay inta noo sii kaabto. waxa weeye haddaad maqasho past continuousba war waa dhacdo kastaoo ka dhacday waqtigii bastigii lasoo dhaafay, taasi oo intii hal mar dhacday aan istaagin laakiin socod samaysay oo socotay ilaa iyo ay mar dambe iskeed iyadu isaga istaagtay. dhacdadan waa inay bashuurdii socod samaysay. socod waxaan ka wadaa inaanay hal mar intay dhacday sidaa lagu tegin ee intay dhacday socotay. tusaalayaasha iyo tensiga qaab dhismeedkiisa ayaan gudageli doonaa. tensigan waxaa lagu bineeyaa ama markaad dhisaysa lagu dhisaayo waa subject plus was iyo were plus verb ing wata. waayahay subject waa kalka ku yaala waa 7 magacu yaal waa she, he, it, I, they, you iyo we. intaasayd ku bilaabaysa xagga hore waxaad ku xijinaysaa was iyo were. sidoo kale maxay verb ing wata. haddaba was iyo were waa loo kala qaybinayaa ee aynu eegna haddana aynu isla eegnaa saxaabta. markaa waxa weeye was waxa qaadanaya qaybta sare she, he, it, I. inta ku bilaabantay intaan soo sheegay was ayaad raacinaysaa. you, we, they saddexdaa hoose wixii ku bilaabmana were ayaad raacinaysaa. haddaba qaabka diidmo hadalka diidmada uga dhigi lahayd ama su-aal uga dhigi lahayd oo kale iyo examplekii ayaynu sheegaynaa asxaabta. example 1 you were living in London ayaad ku noolayd. waqti lasoo dhaafay ayuu London ku noolaan jiray. inuu ku noolaadayna waa wax hal mar dhacda maahee waa wax in muddaa soconaysa oo waqti soconaysa. example 2 I was thinking about you when kaa fikirayay. haye example 3 they were going to tell him something waxbay u sheegayeen. haye it was raining at last night xalitolo roob baa daayay. roobku waa wax socod sameeya hal mar mado waqti ayuu soconaya hours ayuu qaataa saacado might be days u qaadan karaa. example waxaan eegaynaa 6 we were waiting for these books to come waxaanu sugaynay inay buugaagtanu yimaadaan waa sugaynay. she was example 7 weeye she was looking at me way isoo eegaysay
waqti lasoo dhaafay ayay qofkan eegaysay. haddana waxaynu eegaynaa asxaabta qaabkii aad u dhisi lahayd adigu examples ku gaaraa. waxaad u baahan doontaay waa erayo feeb ama ficil ayaad u baahan doontaa. waxaan ku tusi doonaa qaabkaad u samayn doonto. ila soo eeg markaa qaabkaad u kala siinayso adigu u dhisayso. markaad su-aal dhisayso ee aad samaynayso su-aal waa inaad sidan ku bilowdaa su-aasha. hore waxaynu soo sheegnay was iyo where say u kala qaataan subjectgu ama ficil sameeyuhu say u kala qaataan 4 iyo waxaan u kala qaybinay 3. marka waxa weeye inaad ku bilowdo 3daas markaad su-aal ka dhigayso. markaad I was living in London ay ahayd waxaan ku noolaa London, su-aal ka dhigayso wasta soo horeysay keliya. was I living in London, sidaasaad kuwa kalena ugu wadaysaa. waxaa soo hadhay waxa weeye waa qaybta hoose. qaybta hoosena sidaas si lamid ayaad weerta horeysiinaysaayo were you waiting something, ma waxbaad sugi. saxaabta waxaan kusoo khatimi doonaa qaabka diidmada markaad samaynayso. diidmada waxaad samaynaysaa xagga hore waxa yaala subjectgii 7 magacu yaal ayaad dhigaysaa sida aniga, isaga, iyada, kuwaasi xagga hore inoo yaal. halka dhexe waxaa geli doontaa wasta iyo weerta. waxaa ku xigi doontaa not baa kusoo biiri doontaa. halka aan baneeye u dambaysana feebkii ayaad raacinaysaa. hal waxaan kuu samayn doonaa tusaale, adiguna waxaad ugula wadaagtaa haddaad halkan soo gaadhay commentiga 2 examples ama 3 ama 4 example ugula wadaag. she was not staying here. aad baad ii salaamaya asxaabta. halkan may joogin micnihiisa weeye tusaalahaasina